wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Somaliland oo ay qayb ka yihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaano iyo xubno wasiirra ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorame iyo deegaanada ku xeeran gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi oo bulshada reer Awdal kala hadlayay goob fagaara ayaa uga mahadnaqay soo dhaweyntaasi waxaanu ka hadlay qorshaha waxqabadka 5 sano ee soo socda ee xukuumadda kulmiye isagoo hoosta ka xariiqay inay bulshadu ka maqraati kacday wixii hore ugu qabsoomay xukuumadda kulmiye wuxuu ballan qaadayaa oo aad la ballan qaadtaa wixii kulmiye oo naftiya maalka u urayna oo u hawgelinaa nabadgeliyada qaranka Somaliland inaan cadow soo hawaysan horumarka dalku shaqaynaya oo ay koob ka tahay shaqo la'aanta in la dagaalamo dhalinyarada waxaan u ballan qaadanay inay shaqo qaran galaan oo raggana uu ciidanka galo hablaha dhakhaatiirta iyo macallimiinta ay ka shaqeeyaan oo markuu jaamacadda ka soo baxo wala sano shaqo gashaan ayaa inoo balana bariye iyo hay'adii cid loo timaado ilaahay mooye horsamayno 20 sano oo ictiraaf raadinayna ma inaga qaldan garamayn maadiyada gardaran anaanta inaga qaadanayna waxaynu u tabaabashaysanaa inaynu caalamka oo dawladaha inoogu sokeeyo jaarka ay ka mid yihiin iyo kuwa fogba garteena cadaan ugu dhiibano inaynu nahay qaran 27 sano jiray saddexdaa tiir baynu ku dagaalgalaynaa haddii ilaahay yiraahdo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa kale uu ka hadlay way aragnimada iyo tanaasulka siyaasiyiinta xisbiga kulmiye ku wada jira Salmaan Cali Koore ayaa ka hadlay oo isaguna ragga daada ugu yar baarbaanka oo kulmiye ah oo isu sharaxay gudoomiyaha koobaad haddaan xisbiga kulmiye nahay Salmaan Cali Koore waxaan ku joog dib u joogso baashaan ku soo hormareenaay wuu aqbalay oo uu dhisay oo maanta waxa xisbigiisii jooga Cali Waran Cadde oo halka dambe taagan isagoo wasiirka arrimaha gudaha ah oo hay'adda qaranka u sareysa xukuuma ayaa waxaanu ku dhiganayo kulmiye iyo madaxweynaha Cali shaqada aad hayso waa ka degaysaa oo waxaynu ku madanaynaa Somaliland oo soo la siinayaa mar haddii soo la siinayo raalli baan ka ahay oo waan ku dhisayaa buuri wakaasi wasiir dakhliga maanta shaqeynay taagan waa Cali Waran Cadde ninka saddexaad waa Cabdilcasiis Soomaale Maxamed Tawro Garaysan madaxweynaha ugu tartamay dagaal adag baana dhex maray waa la raabay soo taagan baa la ka had wuu aqbalay isagoo madaxweyne laga qaaday waa ka maanta Ahmed Kajande oo golaha dhaxaha oo isaguna madaxweyne u orday oo aniga ila tartamayay oo la yiri had oo kulmiye reebay oo maalin quraacdo Kajande la wareey markaas oo aqbalay baata oo idasaya kulmiye uu doodaa runtu isu sheegaa dadka kulmiye ku jira nin waliba ku talay dantiisa ku dagaalama marka la go'aansado waxa la weeshiyana isagoo gacanta israaciil iskala siyaasadda iyo dimuqraadiyadda saarna faraysa Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Boorame